safaarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ballanqaad caafimaad u sameysay wariyo Xuriya Cabdiqaadir Sheekh Cali oo dhaawac halis ah maleeshiyaadka al-shabaab ay ugu geysteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xilli ay xafiiskeeda shaqada ee radio Gaalkacyo ka soo rawaxaysay. danjira Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo xafiiskiisa ku qaabilay wariyo Xuriya Cabdiqaadir ayaa ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan taageerada caafimaad iyo waliba baxnaanada caafimaad ee wariyo Xuriya Cabdiqaadir u baahan tahay. waxaana uu safiirku ballan qaaday in dhankooda ay sii wadi doonaan taageerada iyo la socodka xaaladda caafimaad ee wariyo Xuriya Cabdiqaadir. Xuriya Cabdiqaadir oo lala beegsaday 5 xabadood oo intooda badan ay ka haleeleen saableyda ayaa xaaladda caafimaad xilligan ay fiican tahay. waxaana ay soo gaadhay dalka Kenya 30kii bishii December ee sanadkii 2011 iyada oo maalmihii ugu dambeeyayna ku sugnay magaalada Nairobi. ugu horeyn danjira Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa halkaasi ka sheegay ballanqaadka caafimaad ee ay u sameynayaan wariyo Xuriya Cabdiqaadir. waa runta way soo sheegtay halkan waxa Nairobi la keenay ama yimaada Soomaali fara badan oo lagu soo dhaawaco wadan gudihiisa oo lagu daawin waayo saakana wariyaha soo sheegtay Xuriya ayaa noo timid arintan waa la soconay anagoo dhaleeceyn aad ugu xun dadka dhibka geystay iyo dhibaatooyinka loo geysto markasto wariyaasha oo ayaga markaas u taagan inay kasoo tabiyaan meelaha dagaalka ka socdaan ama meelaha ugu ka badan galaan Xuriyana mataqaana insha Allah waxa u rajeynaa inay Ilaahay caafimaad siiyo bogsoto danaha safaaradana waxaan ballan qaadaynaa wixii karankeena inaan ka geysano gacan isbitaalka iyo si loo daaweyn lahaa insha Allah. gudoomiyaha suxufiyiinta qurba joogga ah ee dalka Kenya Cabdiqafaar Axmed Shire oo isna goob joog ka ah ballanqaadka caafimaad ee uu safaaradu ay u sameysay wariyo Xuriya Cabdiqaadir ayaa dhankiisa ka mahad celiyay ballanqaadka isagoo sheegay in xaaladda caafimaad ee Xuriya Cabdiqaadir ay xilligan aad u wanaagsan tahay isla markaana ay la kulansiiyeen dhaqaatiir ku takhasusay qalliinka iyagoo si weyn u amaanay dhakhtarkii magaalada Gaalkacyo ugu sameeyay qalliinka oo ay dhaqaatiirta dalka Kenya sheegeen in si weyn qalliinkaasi loogu guuleystay. waxaan aad ugu mahad celinaynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo xaqiiqdii Xuriya Cabdiqaadir hawsheeda aad ula socday oo ka hor intaana dhakhtarka geeyna aan ogeysiinay si aadana inta badan ugu dadaala dadka Soomaaliya ay dhibaatada ku soo gaartay gaar ahaan bahda saxaafadda iyo guud ahaan Soomaalida oo idilba gacan wanaagsan iyo soo dhaweyn fiican u muujiya markii ugu horeysay intaana dhakhtarka geeyna waan u sheegnay ballanqaad hore noogu sheegay ahayd hadaan nahay saxafiyiinta qurba joogga ee dalka Kenya aad baan ugu mahad celinayaa safiirka iyo howlwadeenada kale ee safaaradda Soomaalida Xuriyana sida idin sheegtay xaaladeeda caafimaad aad bay u wanaagsan tahay dhakhtar specialist oo qalliinka ku takhasusay oo Richard Wamba la yiraahdo oo fariista Abbey Hill Medical Center aan geynay oo ilaa 40 sano experience leh waxa mahad iyo sharaf noo ah in dhakhtarkii qalay ee dhagacde oo ammaan fara badan u soo jeediyay sida uu qalliinka ugu guuleystay xaaladeeda caafimaadna uu yiri aad bay u wanaagsan tahay oo qalliinkeedu wuxuu noqday mid successful ah kadib markii uu raajo guud ka saaray saableyda idil iyo computer oo ogaaday qaabkii ay maaragtay xubnaheeda yihiin sida beerka iyo sanbabada iyo sidoo kale caloosha marka waxaan mahad dhamaanteed u celinaynaa dhaqaatiirtii gabadha qalliinka ku sameeyay waxaan sidoo kale cambaareen mid ugu kulul u jeedinaynaa kooxda al-shabaab oo iyadu magaceeda markaasi gabadha lagu dilay ilaa iyo welina sii wada inay maaragtay barakicin iyo dil iyo dhibaateyn ku haya shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. ugu dambeyntiina wariyo Xuriya Cabdiqaadir Sheekh Cali ayaa ka mahad celisay ballanqaadka caafimaad ee safaaradda Soomaaliyeed dalka Kenya sameysay iyadoo xaaladeeda caafimaadna sheegtay in xilligan aad u wanaagsan tahay. waxaa sidoo kale wariyo Xuriya Cabdiqaadir ay ammaan u jeedisay suxufiyiinta qurba joogga ah ee dalka Kenya oo ay sheegtay intii ay dalka Kenya ku sugnayd in ay si weyn ula tacaaleen xaaladda caafimaad. waxaa kaloo ay amaantay dhakhtarkii qalliinka ku sameeyay ee magaalada Gaalkacyo ku sugnaa waxaana ay ka sheekaysay xaaladda caafimaad ee xilligan iyo sida ay tahay. waxaan sidoo kale hambalyo u jeedinayaa safiirka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo xafiiskiisa maanta ugu qaabilay ururka suxufiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed Cabdiqafaar oo madaxda u yahay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed salaan ayaan wada u marinayaa. بعد السلام runtii xaaladda caafimaad aad bay u wanaagsan tahay maalinta ka dambeysana way soo wanaagsananaysaa 14 September sanadkii tagay 2011 kadib markii kooxaha hubeysan oo markaas u hadalayay ama se ku dhawaaqay magaca kooxda shabaab ee Soomaaliya ay dhaawac ugu geysteen magaalada Gaalkacyo qalliin aan ku galay kadib xaaladda caafimaad dhowr jeer aan jiraday kadib waxaan halkaan imid 30kii bishii 12aad sanadkii 2011 ka soo gudubnay
runtii marka halkaan imid soo dhaweyn aada waxaan kala kulmay saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed oo aan xitaa la kulmay doorashadoodii ay gudoomiyaha ku dooranayeen aad baan ugu mahad celinayaa maalintii shalay ahaydna waxay la dhigay laba isbitaal oo labadaba Nairobi ku yaala waxaa la soo saaray iskaan waxaana dhaqaatiirtu ay sheegeen inay haatan xaaladooda tamid aad u wanaagsan operationka qalinka Soomaaliya lagu sameeyay lagu guuleystay waxaana mahad u jeedinayaa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Jaamac Dhagacade oo ahaa dhakhtarkii in badan waqti badan u lumiyay sidoo Ilaahay baa wax badbaadiyay xaaladda caafimaad u badbaadin lahaa qalinkan ay ugu sameeyay magaalada Gaalkacyo marka hore xabadda ugu horeysay waxay iiga dhacday gacanta midig sidaad u jeedidba afarta xabadood oo kalena waxay iiga yaalaan gudaha sida saab leeyda oo feeraha ah iyo caloosha beerka korkiisa marka runtii dhaqatarkii marka uu qalinka ugu sameeyay habeenka ugu horeysay aan soo dhaawacmay magaalada Gaalkacyo ma uusan filaynin qof sidaasi waxa ugu yaalaan haddana operation Soomaaliya qalin ugu sameynayo in lagu guuleysanayo laakiin Ilaahay baa mahad iska leh qof waqtigiisa dhiman yahay kulay horta ma dhimanayo mar un baa dhimanaysa laba jeer dhiman maysid wax kasto lagu sameeyay taadi markay dhamaata dhimanaysa wariye Xuriye Cabdiqaadir ayaa kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku shaqeeya oo dhibaatooyin joogto ah kala kulma maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay qaar koodna dilaan halka qaar kalena ay ka badbaadaan dhagaro loo soo maleegay oo loogu talagalay inay u dhintaan Maxamed Axmed Ilkacaase telefishinka qaranka Nairobi.